odayaal xataa way dhici kartaa in meesha siyaasad ay socoto dhalinyar baynu nahay dhalinyar iska da-yar baynu wada nahay siyaasadda aan si fiican aanan u dhexgelin waxbarasha inaga in lagu mashquuliyey laakiin maa macna siyaasad ma naqaana inagu way dhici kartaa in odayaashan si kale loogu soo dhigay oo markii tegeen inta hoos loola hadlay sidaana dhaha oo idin dhalinyartan la jirna dhaxana lagu wuri oo rabaadho tulay in jujuubna lagu qaatiyo waxa misfaan arag السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي تقاليقة كشود ولا تنركيني سوداني سي اوفيشال فضلا هذا تحسب تاي سبسكرايب النصر لايك تنوع عاوي كومنت لايك شير انت كله هلكيني ان شاء الله. أصحابتي تقاليقة ما تروح نقال دونا سياسة كتاهل السومالان هم بقبلة عوضة سلم قبلي قبلة السودان سياسة كتاهل ساكتاهل بين كان دونا مانت إن شاء الله. أصحابتي تقاليقة عدين وجودك الله وجودها وصيب الله maanta waxaad sugaysay oo aad iyo aad loo wada fadhiyay aba ay wada sugaysay gobolada galbeedka inay saadiintooda ay maanta tegeen Hargeysa ay la kulmeen Muuse Shaani aba Muuse Biixi saad wada taqaaniin hala kulmaanay halka wax ka soo baxay hadal istiidsan amba akhlaaq istiidsan dhinacna waxay leedahay dowladda Soomaaliland amba maamulka Soomaaliland dhinac waxay leedahay saamigiina ay gobolada galbeedka aad ku leedihiin waad ka helaysiin reer awdal salad iyo gabley intiina degta dhinacna waxay ka leedahay doorashada sideedii jujuubkeedii hore ha lagu galo beesha caalamka nagu sanduleysay ku leeyihiin beesha caalamka iyo gobolada awdal iyo Soomaaliland waxa iska galay mise maxaa iskaga gadhiisha beesha caalamku waxba kuma sunduleyso laakiin waxay rabtaa si salmiye si fiican si ay ku jirto ixtiraam iyo wax walba ay ku jiraan in doorashadu u dhacdo ay u qabsanto ay jecel yihiin malis fahmi halkaas waa qodob mid kale waxaan arkay isaguna wasiiro reer awdalow ka daaya carqaladeynta ka daaya doorashada reer awdal mid bay kaga dayn karaan carqaladeynta doorashadooda mid bay kaga dayn karaan waxa weeye iyagu saamigooga ay ku leeyihiin kuraasta la siiyo waxaan ahayn no more ma fahamtay ma jirto jid dambe iyo hadal hays dambe waxaas insha Allah jiri mayso reer awdal waxay ku leeyihiin ay ku socon karaan iyagoo saamigooga ay ku leeyihiin gobolada galbeedka marka la isku geeyo saamiga ay ku leeyihiin iyagoo la siiyo intaas hadalku ku soo gabagaboon doona insha Allah. Haddaynu dib ugu noqonay yarna maanta odayaal baa tagay Hargeysa odayaashaasi markay tageen aduu dawaa taqaaniin idin sheegi maayo waxoogaha afka dad waa loo soo buuxin karaa oo saadka waa loogu soo tuuri karaa saadka dad waa loogu soo shubi karaa marka laakiin aad iyo aad waxaan ugu hambalyeynaya odayaasha qaar afka loo soo buuxiyey saadka loogu soo shubay laba erey bay barta ka soo ilaadeen oo ay xaylaan jujuub in lagu galo doorashada saas halkan aad iyo aad waxaan uga hambaleynayaa salaadiinta gobolada awdal iyo salad iyo gabiley intay tegeen Hargeysa aad iyo aad wada hadalkii Hargeysa mira dhalka soo sameeyay aad iyo aad baan idinku hambaleynayaa idin kala qaadi maayo laakiin way jiraan salaadiin waxoogaa afka loo soo buuxiyo kharash yar la soo siiyey kuwana waxaan leeyahay dadkiinu weeyey hadhow tula Hargeysa saa u dhex fadhiyi maysid hadhow tala waxaad tegi doontaa waa gobolkaagii amba waddankaagii garanaysaa dadkaasna waa dadkaaga matashid Hargeysa ma matashid laakiin dad baa matashaa dad baa kaa dhigtay salaadiin dad baa kusoo doortay dad baa xilkan aad maanta sidid heerkan kusoo gaarsiiyey iyagana waxaa odhan lahaa ka waantooba iskana daaya caada qaadayaashaad noqoteen iska daaya dadkiina raaco waxaan idin odhan lahaa la jaan qaada dadkiina halkana waxaad igula soo dhawaateen soo dhaweyntii ballaarneed ee loogu sameeyey markii kasoo noqdeen Hargeysa salaadiintii sida doorka la ka qaatay sida fiican u hadlay ee yidhi maanta waxa ay jaangoyn kara siyaasadda gobolada galbeedka maanta waxa iskale oo gacanta ugu jirta waa dhalinyarada say u soo dhaweeyeen amba siday yacni ay uga qayb qaateen soo dhaweeshowgii fadlan ila daawaya
waxaanu aad iyo aad u bogaadinaynaa inuu soo dhaweynaynaa salaadiintan xaqa ku aadimay waxay qaadeen koobkii gobonimada ahaa waa taariikh iskeed isku qoraysa oon cidna loo daba fadhiisanayn waa arrin biyo dhiceedu ahaa masiirka boqolaalkan dhallinyarada ah iyo kumanaankan dhallinyarada inay ka baxaan xaaladda maanta ay ku ciileeyihiin ay ku jiraan wax badanoonu nacfi u arkaynoo nusqaannoo lahaabaa jiray laakiin maanta aanu garawsannay boodhka intaanu iska jafnaan kacnay wax yagina inaanu ridanaanu rabnaa waxaan ku hadlayaa afka dhallinyarada gobollada galbeedka waxaan ku hadlayaa afka dhallinyarada gobollada galbeedka Somaliland waxayna Soomaalidu sideedaba tiraahdaa qofka fulihii waxa uu dhintaa 100 jeer halka ka geesigu hal maalin dhinto geesinimo iyo waxaad ku dhimateen maanta arrin sumcad ubadkiina dhaxal iyo aayuu noqon doona waxaan idinku soo dhaweynaynaa hoygaad guusha u soo hoyseen waxaanu idin leedahay weligiin halka kaga haya intaas waxay ahayd intii ay ku soo dhaweynayeen Cabdinaafac iyo dhalinyarta kale say u soo dhaweynayeen salaadiintii ka qayb gashay wada hadalkii maanta ka dhacay Hargeysa madaxtooyada marka asxaabta qaliga halkan weyn yar waxa digula arki doontii taantirku sita xataa aanu garan maayo laakiin in halkan iska hadlayo iska badaacinaya oo yaanan la qasin aba yaanan laga hadlin aba yaanan doorashada yaanan la carqaladayn iyo waxa ka hadlaya oo bartan ka hadlayna isagana waa arkaa bal isagana fadlan ileer daawanayaan gobolka awdal wuxuu leeyahay maanta waxaan aaminsanahay inuu leeyahay sad saayida inuu haysto waxaan jecelahay si aynu hawsha uga gudubno doorashada yaan la carqaladaynin saami qaybsiina suurtagal maaha inagoo qaadanay nidaam dimuqraadi nin kastaaba gobol kastaaba dadka ku nool ayaa wax u jaangoyn doonaan matalaadda ay ku yeelanayaan golaha baarlamaanka iyo golaha gurtida runtii waxaan jecelahay qodobka inaan saxo waxaan aaminsanahay arrinkaasi arrin majara habaabiyey oo lagu celceliyey inuu yahay gobolada u baahan maanta in ay arrimaha ka kaasina isagu wuxuu doona haysaa iskaga hadlo marka dhalinyarta awdal hal mid baan u soo jeesan lahaa dhalinyarta awdal waxaan odhan lahaa dhalinyaroy maanta idinku jira saamigiina iyo wixiina maanta idinka ka hadli kara maanta dad odayaal daba fadhiisatiin amba odayaal horta odayaashu way idin matalaan odayaashiina way xilka idinka u dhiibtay laakiin hadalka idinkeenaan haddaad saxsan yahay iyo khaldan yahay haddaad qaadatiin waa doqonnimo iyo karaan iyo aqoon darro maanta idin hayso wey gobolka waxaa la yidhahdaa waa gobolka aqoonta la yidhahdaa haddana aqoontii iyo aqligii halkuu inaga maray ayaynu garan lahnay maanta mis fahnayn dhalinyarta awdalay marka haynu dhiirigelinno inta odayaal xataa way dhici kartaa in meesha siyaasad ay socoto dhalinyar baynu nahay dhalinyar iska da'yad baynu wada nahay siyaasadda aan si fiican aanan u dhexgelin waxbarasha inaga in lagu mashquuliyey laakiin maa macna siyaasad ma naqaana inagu way dhici kartaa in odayaashan si kale loogu soo dhigay oo markii tegeen inta hoos loola hadlay sidaana dhaha oo dhalinyartan la jirna dhahana lagu weri oo rabaadho tulay in jujuubna lagu qaatiyo waxa misfahna dhalinyaray marka dhinac walba inaad ka fikirtid aad iyo aad bay u fiican tahay haysulun odayaasha sidaa si fiican bay noogu soo qaadeen laakiin waxa ilaa gunta laga gaadho laga mara keeno mooyaane lagama haro sidaa ha kaga fadhiisan idin lahaa Cabdinaaficna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sida fiican iyo sida karaamada leh uu dadka u soo habeenayo uu dadka u dhiirigelinayo marka waxaan dooran lahaa qabta wada hadal qabta shirarka la soo diyaarsada qabta shirarka kale marka soo qabatiin insha Allah wax midla ka soo saara inta qof aad imiga aad ka soo saxeexdeen ka badiya saxeexa gaarsiiye ilaa 100 kun oo qof gaarsiiyo boorma dhexdeeda joogta amba gobolladoo dhan ka soo wada gura saxeexa waxaan idin lahaa ka fadhiisanina maanta doorka ciyaar kartiin waa maanta sidan haddii doorasho lagu galo ay doorashada sidan ku dhacdo wax dambe sugaysi amba wax dambe meesha ku yaala ma jirto birtan waxa leeyahay waa tii ay awalba ay ku galeen haddana sidoodu hore waxa ku socoto kursi dambe heli maysid siyaasad dambe ka hadli maysid waxa iska noqon doontaa la hayste
ya marka waxaan idin oran lahaa boqolkiiba boqol isaad u socono maanta iyo sidaynu u wadna hawsheena aad iyo aad baan uga helay aad iyo aad bayna inagu socotaa fadlan aan isdhiirigelino qofka kale ha dhiirigeliyo haynanu horena haynu u socona insha allah videoga yara koobanna waxaan u talagalay dhalinyarta awdal si aan ugu soo baraarujino maadaama anagu aan qurbo joogti nahay aanu wadanka joogin maanta laakiin waxaan ku dhiirigelinayaa waa walaaladii wadanka joogta inay hore ugu socdaan tallaabadooda ay hore ugu qaadaan keep going baa leeyahay aad iyo aad waan idin salaamaya fadlan haddaad ku cusub tahay subscribe noo saar nagula soo biirna channelkan waa channelkiini waxaanu kaga hadli doonaa insha allah warar intaan ka xasaasiyad badan oo aad iyo aadna aan isku dhiirigelin doono aad iyo aadna waad u mahadsantahay